بسم الله الرحمن الرحيم. naag ka tirsaneed ciidanka Israa'iil oo lagu magacaabo IDF. naag ka tirsaneed ayaa shaqo cusub la siiyey. TikTok ayaa shaqo cusub siiyey. shaqada cusub uu siiyey maxay tahay? shaqada cusub uu siiyey waxa weeye in dadka ay daba gasho wixii muuqaal oo ku saabsan Falastiin in qofka laga tirtiro ama qoraal loo soo qoro la dhaho muuqaalkan looma baahna ama in viewskiisa uu yaraado, dadka fiirsanaya ama daawanayo inuu yaraado, yani saameynta muuqaalkaas in la yareeyo. shaqadaas ayaa la siiyey naagta. magaceeda waxaa la dhahaa Erika Mandel. sawirkeeda waad aragteen sidaan filayo. marka arrinkan ha la ogaado. badanaa dadka Maraykanka joogo iyo meelahan kale Canada warka hadda uu soo gaaray, warkaana waa war cusub. hataa CNN naag ka shaqayso ayaa waxay dhahday waana loo diiday inaan tagno Falastiin. dhegeyso. It's a huge problem. We, international journalists who are fully equipped to be able to see and analyze and report what's going on and who've spent a whole career doing it, have not been allowed in there. I'm just asking. marka waxaa loogu diidayaa dadka saameynta leh, dadka youtuberska ah ama dadka ka shaqeeyo idaacadaha waaweyn. waxaa loogu diidaya waxa waaye dadkan dhibaatadooda in la ogaado lama rabo. waxaa la rabaa in la qariyo, in la masaxo oo lagu tunta ayaa la rabaa. IDF taariikhdoodana waxa waaye waxaa loo as-aasayba in ummadda Falastiin la baabi'iyo. marka intaas baan kusoo koobay. billahi tawfiiq.